wardegdega xagee ayay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiyaanka ahaa ee maanta gudaha Soomaaliya u soo tallaabay maamulka Jubbaland oo gaadiid dagaal kaga daadgureynaya doomo magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland Ras Kamboni oo laga hirgeliyay xarunta taliska ciidanka cirka Soomaaliya iyo diyaaradihii cirka Soomaaliya oo guud ahaan halkaas la isugu geeyay goorma ayay tahay howlgallada ay fulin doonaan inay si rasmi ah u bilaabaan muuqaalkeena ayaynu ku eegi doonaa haddii ay buweyno u idmo haddii aad nagu cusubtay fadlan ku soo biir page-keena oo ka mid noqda saaxiibada ay nagu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaalaan haddii jeer halkan aynu ku soo baahino jimco wanaagsan haddii aan ku bilaabo gaadiidka dabaabaadka ciidamada Itoobiya oo gudaha Soomaaliya u soo tallaabay isla markaana doonayay inay gudaha u galaan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa isoo istaag waxa ku sameeyay shacab dhiiran iyo mas'uuliyiinta maamulka degmadaas iyo saraakiisha hay'adaha ammaanka nabad sugidda iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado waxa loo diiday in gudaha ay u soo galaan degmadaasi waxay keentay inay dib ugu laabtaan halkii rasmiga ahayd ee ay ka yimaadeen oo ah xadbeenaadka kala qeybiya Soomaaliya iyo Itoobiya ciidamadan ayaa qorshahoodu waxa uu ahaa inay fariisimo ka dhigtaan qaybo ka mid ah degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado iyo deegaano kale oo hoos yimaada iyadoo uu qorshahoodu ugu weyn uu ahaa sidii ay u garabsiin lahaayeen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si la mid ahna ay u adkeysan lahaayeen in aysan gudaha Soomaaliya ka bixin jibiyaan amarka dawladda federaalka Soomaaliya kol hore ka soo baxay oo ah in ciidamada Itoobiya guud ahaan dalka ay isaga baxaan 24 cisho wax ka yar ayaa uga haray joogistooda gudaha Soomaaliya balse 10,000 oo askari ayay doonayaan in si qasab ah ama awood gudaha Soomaaliya ku soo geliyaan dawladda federaalka qoraal ay soo saartay ayay Itoobiya ku eedeysay inay jibisay daris wanaaga isla markaana ku soo xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya waxay sheegtay dawladda inaysan ka gacan laaban doonin isla markaana iska difaaci doonto duulaanka xabashida geesta kale magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland waxa maanta halkaasi doomo looga daadgureynaya gaadiidka nooca dagaalka iyadoo oo la isugu geenayo deegaanka Buurgaabo la yiraahdo halkaas oo dhawaan ay isaga baxeen ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Jubbaland kuna biireen garabka dawladda federaalka saate ciidamo saacadii ugu dambeeyay lagu daadgureynaya halkaas ayaa loo daadgureynaya gaadiidkan iyo hubka culus oo muddo sanada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu ka soo dejisanayay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland qorshahoodu waxa uu yahay in ay si toos ah u weeraraan deegaanka Ras Kamboni oo ay dejiyeen madaxda maamulka Jubbaland qidadii dagaal ee lagu weerari lahaa sida xogu ay tilmaamayaan abaabulka Buurgaabo ka socda mid ka soo horjeeda ayaa ka soconaya deegaanka Ras Kamboni oo weerar ku yihiin ciidamada ka amar qaata Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe halkaas maanta waxa gaaray diyaaradaha nooca dagaalka iyo ciidamada cirka oo halkaas si toos ah ugu hirgeliyay xero ay ku howlgali doonaan waxa la sheegay in ciidankan ay si toos ah uga howlgali doonaan halkaas fulin doonaan howlgallo qorsheysan oo ay qayb ka tahay la dagaalanka al-shabaab iyo si la mid ah ka hortaga weerarka kaga soo wajahan dhinaca Buurgaabo oo ay abaabulayaan madaxtooyada maamulka Jubbaland marka loo eego deegaanka Ras Kamboni waxa xaaladda ka jirta ay sababtay in guud ahaan duulimaadyadii gobolada dalka Soomaaliya maanta ay hakad galaan ka gadaal markii ay shirkadaha duulimaadyada diideen in ciidamo ay u daadgureeyaan Ras Kamboni kadib amar ka soo baxay dhinaca maamulka Jubbaland oo hanjabaad ahayd oo la xiriirtay inay soo ridi doonaan diyaarad kasta oo soo qaada ciidan isla markaana geesay Ras Kamboni waxay ka hor yimaadeen daadgureynta ciidamada halka dawladuna go'aamisay in wax duulimaad ah gobolada dalka aysan aadin amaradan ay ku soo rogeen waxa ay sababtay in maanta duulimaadyadii gobolada dalka Soomaaliya ay hakad galaan wixii warar ay ku soo kordhay xiisadan waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena barnaamijyadeena xiga nabadgelyo